ilaahayga cirka tiir la-aan sameeyey ayaan ku dhaaranayaaye taariikhdu waa wax qoran oo ay cidna inkiri karin. warqad ayaa igu timid ciwaankayga WhatsApp ka timid oo ka socoto walaalahayga Soomaaliyeed. qol sano ka hor walaalahayga Soomaaliyeed waxay ahaayeen dadka ugu qanisan qaaradda Afrika marka la dhaho wadanka ugu qanisan. waqtiga aan ka sheekeynayo walaalahayga Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad ku sadaqaysto walaalahooda reer Jaziira. ayadoo lagu tilmaamo wax laga xumaado ayaa waxaa dhacday gaajo ku dhacday reer Jasiiratul Carab. waxaa gargaaray oo garab istaagay walaalahayga Soomaaliyeed. Madiina yaa badbaadiyay oo yaa garab istaagay oo yaa gaajada waqtiga haysay Madiina ooga gargaaray walaalaha Soomaaliyeed. warqada igu timid oo cinwaankayga WhatsApp-ka ku timid waxaa ku qornaa walaalaha Soomaaliyeed ee bixiyay dahabka, walaalaha Soomaaliyeed ee bixiyay xoolaha nool, ariga, geela iyo lo'da leh, walaalaha Soomaaliyeed ee bixiyay raashinka la cuno. waxaa cinwaan u ahaa warqada igu timid WhatsApp-ka waa walaalihiin Soomaaliyeed ee taajiriinta. waxay ku sadaqaysanayaan walaalahooda faqiiriinta ee reer Madiina. maantana Soomaaliya ayaa u baahan in la garab istaago oo reer Madiina ayaa taajiriin halka Soomaaliya ay tahay faqiiriin. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومالمو إله أوكل الرجرجو عندنا بعين وتاجر كدجو عندنا ومعلم فقير كدجو. سيدو كلا أهل الحجاز وحيك قادن جرين صدقة غير مصر. غير مصر وحي أهايين دد غني وحينكو صدقي سنجرين ولا على هذا الريح. سيدو كلا هنديو waxay ahayd dad qani ah waxayna ku sadaqaysan jireen walaalahooda reer Madiina. hadda hindiyo waad aragtay waxay joogaan wadooyinka ayagoo shaqo ka raadinaya Madiina. Lubnaan waxay kamid ahayd wadamada Carabta wadamada ugu taajirsan. heer waxay gaartay tufaaxa intuu wax yar ka goosta ninka Lubnaaniga oo tuuro. dhanka kale waxay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee Carbeed oo ilmahooda iyo caruurtooda ay wax barteen. heer ay gaareen Lubnaan wax kasta oo la soo saaro oo qoraal lagu qoro wuxuu ka soo baxay wadanka Lubnaan. markaas kadib waxaa ka dhacay dagaal qabiilo ay isku dagaaleen reer Lubnaan. kadib wixii dhacay waa dhaceen وتلك الأيام نداولها بين الناس. Kuwait sidoo kale waxay ahayd wadan qani. Kuwait sidoo kale waxay ahayd dal qani ah. waxay ahayd dad ilaah uu ku manaystay wax kasto. inta uu galin Saddam Hussein mase uu weerarin dawladii uu hogaaminayay Saddam Hussein kadib waxay noqotay dawlad faqiir ah. waxay noqotay nuqayn wad aragtaa. وتلك الأيام نداولها بين الناس. Soomaaliya gaajada iyo dhibaatada waxa uu keenay oo sabab u ahaa waxaa timid shirkad ka ganacsato haragga oo ay lahayd dawladda boqortooyada Ingiriiska mase UK oo European kamid Union. heer waxay gaareen dadka Soomaaliyeed ay hilibkana tuuraan haragga neefkan ay ka gadan shirkadaas. mararka qaar waxaa dhici karta qofka Soomaaliga inuu subaxii neef uu qalo beer bas uu ka cuno inta kalena uu tuuro haraggan uu ka gado shirkadaas. markaas kadib waxaa soo baxday ayadii Quraanka Kariimka ee ahayd وتلك الأيام نداولها بين الناس. ogsoonow oo xasuusnow markasta oo aad ka mahad celiso ilaah waxa uu ku siiyay ilaah uu ku daayaa waynu ku barakoobaan waxaas. ogsoonow markasta oo nicmada ilaah uu ku siiyay aad ku kufriso oo ka mahad celin wayso ilaah uu ka qaadaa wuxuuna siiyaa qof ka mahad celiyo. ushkur nicmata rabbik. ogsoonow oo xasuusnow waxaad u baahan doontaa wixii shalay aad tuurtay markii aad gaajooto oo rafaado oo nicmada aad ku jirtay shalay ilaah uu ka qaado oo ruux kale u eebuu sheegay oo wuxuu yiri وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون